dhawaada mar kale barnaamijkii xusuus reeb oo had iyo jeer aanu kaga hadallo sidii hore baanu idinku sheegnay waxyaabaha ay noola muuqato inay mudan yihiin taariikh ahaan in looga sheekeeyo iyo dadka had iyo jeer ay noogu muuqato inay hayaan taariikh ama wax dhacay oo loo baahan yahay in la isla ogaado maadaama 60kii sanadood ee ugu dambeeyay wax badan dhaceen maadaama aanay Soomaalidu wax qoran ee dulka hayn taariikhda iyo wixii dhacayba ay yihiin maadaama waliba 40kii sano ugu dambeeyay Soomaalida ay ku dhacday wax adduunyada kale kumanaan sano ka dhaca oo muddada kooban burbur baaba dagaal iyo dhibaatooyin badan ay dhaceen ayaa waxa had iyo jeer barnaamijka aanu ku marti qaadnaa dadkaan u aragno in aqoon gaar ah ay u leeyihiin waxaan idin hayaa mid ka mid ah raggii udub dhaxaadka u ahaa haddii ay dhibaato tahay iyo hadday dheef tahayba wixii muddooyinkaasi ka dhacay oo u soo fadhiyay dagaalo badan oo dhulka ka dhacay Colonel Muuse Biixi Cabdi oo imika siyaasi noqday laakiin anigu maanta waxaan u wareysanayaa oo aan ka wareysanayaa noloshiisii militarinimadiisii dagaaladii uu galay iyo waxyaabihii uu ka ogaa wixii arada Soomaalida ka dhacay Muuse Biixi Cabdi wuxuu ku dhashay kaymaha Faraweyne markuu dhashay Faraweyne ma jirin oo ogahay markii dambe wuxuu ku koray oo ku barbaaray Hargeysa iskuulka ayuu halka ka galay biyo dhacay ayuu dugsiga hoose iyo ka dhaxaba ka dhameystay Amuud ayuu dabeedna ka dhameystay 1970kiina waxa loo diray Ruushka oo wuxuu ka mid noqday ciidamadii ama raggii loo tababarayay militariga Soomaaliya waxa uu soo tababartay oo la baray dayuurada bambarka loo yaqaan wax duqaysa inuu garaaco oo waxna duqeeyo ama difaac noqoto ama wax leyn labada mid ay doontay militariga muddo ayuu ahaa ka bacdina isagoo korneyla ayaa haddana loo diray Mareykanka oo culuntaas haddana sii korarsadu soo maray wuxuu soo joogay dagaaladii dhacay 1985kiina waxa uu ka mid noqday raggii saluugay ama ka soo horjeestay maamulkii dawliga ahaa ee dawladii militariga ahayd waliba ee wadanka haysatay oo yidhi waxay mudan tahay tan in lala dagaalamo wuxuu dagaal ku soo qaaday oo ka mid ahaa raggii horseedka ka ahaa weerarka gumaadka iyo dhibaatada weyn dhaliyay ee lagu qaaday dhulkii waqooyiga loo oran jiray gaar ahaan magaalada Hargeysa isaga la fahantiisu wuxuu qoriga u soo qaatay ka hor yimi ciidankii uu ka tirsanaa isagoo tagay Ethiopia inuu xagga kale ka soo jeesto oo iyaga laftoodii u qaato in la dagaalamo waxa ay waxyaalo mid ah sababihii ku kalifay wixii dhacay iyo wuxuu goobjoog ka ahaa ayaan weydiin doonaa Muuse barnaamijka ku soo dhaw marka hore ku dhaw intaada hore ee nolosha yaraantaadii iyo ma garanaysaa maxaad ku dari lahaydeen ka tagi horta waxaan ku daraa kornelnimada kula weynaad sheegayso wataan iskaga tagaano waat imka kornelmaya oday waan ahayd waa ogahay mugoog intii dabadan waxaan ahaa xaq u dirir mujaahida waa sax kornelnimadaas waa la ogyahay iyadana waa tii la isku seegay loo kala tagay waat militariga aad ku tagtagsanayso dee wax kale ku dari maayo noloshaydu waa sida kayntaasaan ku dhashay Faraweyne xag hoose ka xigta Hargeysa oo ku koray inta badan miyigaan u badnaa ee tayara noloshaydii intii aan korayay geel jira ayaan soo maray ka bacdina magaalada mid iskuul iyo boarding baan soo maray haddana askari baan noqday haddana jabhad baan noqday askariga markaad Ruushka tagtay waxa lagu soo baray ciidanka dayuuradaha Soomaaliya diyaaradda oran jiray L28 oo 3 boqol aan ka haysanay way oo bombara ayaanu ahayn diyaaradda 3 qof baa ku duuli jiray way navigator oo hogaamiyaha anigu aan soo bartay way duuliyaha iyo nin bambadi hubka rido bahasha marka meelaha aad ka shaqaysay مثلا waxaan shaqada ka bilaabay xamar way waxaan duuleynaa maalintii ka guuray laba diyaarad xamar isku dhaceen ciidankii guuraya baan ahayn 75 kii Allahu naxariistay Cabdiraxmaan iyo Axmed Rashiid waxa Rashiid aan isku kooxayno mar ka wada nimidoon meel wax soo wada baranay ayay ahaayeen way marka koylata ka horkacaysay anigu ka dambeynay laakiin waxaan ku jiray gobolka ku jiray markaas kacaan maalintaas aan Baydhabo guuray Baydhabo waxaan joognay ilaa iyo 2 sano meelaha ka bacdina waxaan ahaa ciidankii lagu furay saldhigga Baledogle taafeed qoladii horeysay la geeyay oo kullee waxaan malnayaa saldhigyada ugu waaweyn geeska Afrika aanu ahaynba ayuu kamid ah waat halkaas aan joogay ilaa iyo
77kii aanu dagaalkii ka galnay dagaalkii 77kii baanu galnay waay xaggan baarre waa duqeeyey iyo doolo iyo xaggan kabacdina berberaan ugu guuray berberana waanu ka duulay dee jigjiga iyo herar iyo dhulkaa raggii gawda ku hayay baanu ahayn dagaalka 77kii 77 ama 77kii soomaali badan waxay rumaysan tahay inuu kow ka ahaa mushkiladan iyo burburkan dhulka soomaalida ka dhacay iyo dowladdii markaa aynu ka tirsanay adna aad militarigeeda ahayd anna qudhaydu aan shaqaalaha dhinaca kale ka ahaana meelaha ay eeday bay ka mid tahay bal waxaad ka warantaa waxaad ka xasuusato dagaalkaa 77kii sidii loo galay iyo ciidankiina cirku wuxuu ka qayb qaatay ma duqaysay adu meelo ma ka qayb gasho dayuuradaad ma kacday horta qodobka hore arrinta soomaalida burburkeedu kama dhalan 77kii uu ka horreeyey waay anigu waxaa qaba wuxuu ka dhashay dowladdii la dhisay 1960kii waay juulaay dowladdii lagu dhawaaqay ayay ciladu ka dhalatay laba dowladood isu tagaynu ahayn markii la isu tegay heshiis lama saxiixin waxna lama qaybsan dal dhan oo dalkii halku soo bira imaan waxba la weydiin waay waa ogtahay hawada markii dowladdii laba dal baynu ahno midna ka xoroobay ingiriis midna ka xoroobay talyaani dabeeto markii la isu yimid madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo labada taliya ciidan iyo wasiirkii gaashaandhigga iyo wasiirkii khaarijiga iyo kii daakhiliga iyo kii maaliyadda iyo labadii ciidan intiiba wax meel baa looda mariyey waay goboladiina waxa gobol baa tihiin marka danbaa bariga loo kala saaray markaa is afgarawaago iyo isa seega waqooyiga iyo koonfurta halkaas ka dhacay kasoo bilo halkaa waa kii bar xasan kayd iyo inqilaabka isku dayana la carooday 61kii dee kol waa tii gabayga ahayd mar ay cabdi idaan iyo dakalka dabashay doonidii mar waa ka timi cadal ahaa hargeysa berberdadaad kaa qaado dee dareenku kulba af buu ahaa kulba waxbu kusoo socday 77kii dabkii xawal muuse saare soomaalo dhan baa wada cadhootay markan dambe markan la gaadhay 77ka dagaalka qorshihiisii waxaa geli maayo waayo wuxuu ka socday anigu maan ahayn levelka markaa tala goynayay kumaan dhaweyn anigu ciidanka cirka dagaalkiisii aan ka warhaya marka ciidankiina cirku masalan dowladahaad lahaydeen iyo awooddaad lahaydeen iyo Ethiopia ciidanka cirku inay xagga cirka aad uga xoog badnayd markaad nagama xoog badnayn waay Soomaaliya 9 goor ka xoog badnayd waay waxay diyaaradaha ugu casrisan baan haysanay oo hay diyaaradda MiG 12 saddexdan diyaaradood bambarka aan ku duuleynay waxay saddex diyaaradood geeskiba u oolin xoogooda iyo qabqaadkooda mid tarbarka naga dhacdo badda ku dhacday waay habeen xamar ee xusteen kala booyaan waat labadii kale ayaa dagaal ku galayay waxaan xustaa heerkan bariga joognay Afrikada madow wax yar baa joogay waay ilaa dhowr iyo 20 diyaaradood ayaanu galab isku xidhnay September dhowr iyo 20 baa waay intaanu hargeysa casar ka duulay dhowr iyo 20 diyaaradood oo 12 oo codkeeda ka dheeraysan oo 17 leh oo bombar leh oo isku xidhan dowladda Afrikaan markaa inta cirka oo saartay ma jirto dhowr diyaaradood dhibaatada ciidanka cirka way naga waay aragsanaayeen halka wax iska bedeleen waxa weeye ciidanka cirkeenu anagoo diyaaradaha dhowr sano gacanta ku haynay diyaaradda weerarka ahayd ee xoog ahayd 12 markaa raggii ku duulay ninka badan 2 sano ku duulay 76 la bilaabay 75 baan bilaabay akhirkiisii iyo bomarteedanba miiga hore loo yaqaan 17 oo rag waay arag ku duulay laakiin waa diyaaradii 17 markaa diyaarada culayska xooga waxa dhaafeenay waxay 12 kana inaan ka adkaanin ayuu dagaalka urtii manu galay dabeetana diyaaradii afka ay wateen ka liitay 17 kala midka ah ay wateen Ethiopianku ay bilotaashoodu 10 sano ku soo duulayeen dabeetana marka la isku yimaado dhaq fight-ka cirka diyaaradii ninkii waa arag ahaa markaaba diyaaradii 12 inuu soo dhawaato aan ahayn oo ka badan oo raadar leh oo ka gataar weyn ay soo ridiyeen manufarkaan ahayd iyo xarakada diyaaradaha rag badan naga dhintay diyaaradooda ma soo dhacay qaar buurta duceen kaar marna 2 bilood oo aan garanay shideeyeen kale abakar busana abakar xasri ha Allah yarham diyaaradaha kalena diyaaradahan Ethiopia kala way ka adkeen waxay ahayd gacanta bilotayaasha diyaaradahan ku ilaatayna waa arag ku ahayd iyo bombar markaa anagu cusbeed anagu taatirimeed qoysa waxaan duulay in ka badan dhowr iyo 10 sorti waxa weeye waa markii walaal la qaado hub sortiis way waxaan qatiray hub gaara ilaa 60 babweena markaa jigjeer garaacnay kaana marna maalintii u dambeysay waxaan waraab arku sanad ku sameynay waxaan garaacay baarey
waxaana garaacay doolow waxaan goyn jiray jidgooyada ciidamadooda si socdo dhan halkee ka duuli jirtay markaa berbera saarkiisa diyaaradan ku martay anigu waxaan diri jiray berbera diyaaradan diyaarad strategical ay ahayd wala fogeynaya tiina waxaan naga daway maadeen maanta ma ku berbera naga gooy diyaaradiiba berbera loogu yimid diyaaradiga la socday iyadoo oo intaan hubkii ka buuxinay iyo shidaalkii aan ku cid diyaar u nahay oo malaha 3 minutes ay ka harsan tahay ay barta badda ka soo booday way anaka fiirin inuu intaa gaaray reejkoodu diyaaradaas ma iska ilaalinaya bartii ku dhintay raastii buura sheekh wala arkay qiiqiya wixii ka dhacay taasaa inuu gudbisay halkaasay tii kale aniga nin kale farax ugu dulna waa ku dhuftay qori anti aircraft chicken ga soo dhuftay hargeysa wanaga jinay iyadoo oo gubanaysa garoonkeeda dhanka waqooyi koonfureed bay u jirtay way midna badar ka dhacday saasaa dagaal ka socdaan bombarkiiba faraha uga baxay saddexdii ma khaldan markaas aad bay u dumisay xagee lagu geeyay markii dambe ciid arrimaha dibadda joogtay qaybta arrimaha dibadda markii qoladeedii markii saddex diyaarad soo burbureen de ruushkiina la xiriirka kii loo gooyay xumaa de marka ciidan ma meesha ka baxo ciidanka bombardierka wana ciidanka ugu hubka ugu culus ee weyn ee wax naafeeya ciidanka cirka u qaaday oo bambooyinka waaweyn leeyahay iyo haamaha iyo qaadi kuwaas ka baqtaan tanaayin waxaan arin xalay bedelay ciidanka cirka way waxa la bedelay xaruntii guud ee كما حرمت عيدما تلسكي جود واي waxa la geeyay waaxdii arrimaha xiriirka dibadda waay نفع أنا وآد ونكسنا وانا نروح قجرو إلى حيد يعني محمد حيد والله كورنيل كان نفع عن بوه نحسنا بدل الله شقينا halka waan ku yaray baxado waxaad kala baratay maada dibadda iyo xiriirada iyo waati Mareykanka loo wareegay waxaan noqday waxaan nasiib yeeshay inaan ka mid noqdo waftigii ugu horeeyay ciidan Soomaaliyeed ee gala Pentagonka xarunta gaashaaniga Mareykanka Umar Xaaji Maslaan wati aniga in la ciise soo foo imka malaha xaaji soo baa cimshar lacag ay ugu dambeysay ma sha Allah way ayaan ka mid ahayn kimika bariga ka ahaa ambassador maalmaha waa joogo ugu tagan marka waxaan ciidankii u horeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee military ee Pentagonka la geeyo ee gaashaaniga Mareykanka la kulmo markii dambe Mareykanka ku noqday koorsooy beenisiyeen halka soo baratay marka kolkii hore waxaan soo baranay ciise Sofia ayaan oo diray meel Dayton labadii ugu horeeyay koorsayaan baranay koorskaan buu waxaan soo go'nay procurement sida hubka iyo wax loo kala gato oo sharciyo badan iyo leeyihiin xeer badan oo hab marka habkaasina soo bareen tiibana waxay ku shaqeynay markii dambana waxaa la diray course saadka oo ahaa Fort Lee Virginia kaasaan laba sano ka soo dhameeyay oo isla saadkii maamulka kaasaan tagay kaas sanad iyo dheeraad ayaa joogtay marka daraj cornell baad gaadhay soo maahayn markii dambe aan mijirba ka tagay olkay kolka anigu joogo Mareykan ma la siiyay gaashaal dhax olkaygii yana la siiyay markii dambe marka aad u eegto misalan gaashaal dhax ka tagay taliskiini ciidanka cirka oo kale rag hore aan wareystay oo ma garanaysaa ciidanka ka mid ah dadka dhulka ugu badan bay hayeen jabhadaha waxa galayna ciidanka cirka ugu badnaayeen gaar ahaan SNMta waxay sheegaan dhibaatooyinka dhacayna ka mid ahayn raggiinii duuliyaasha ahaa iyo in loo keenay qaar ama laga keenay ciidanka lugta ama oo aan ma garanaysaa garanayn dayuuradii waxba toornay maamulkii uu idinka kharimeeyo waxyaalaha wax sii xumeeyay ay ka mid ahay maxaa wax soo xumaanayeen ciidanka cirka markii hore waxaa ka mid ahaa Yusulig piloot waxa marka nin farsamada yaqaana ilaa ciidanka cirku ka duway ciidanka lugta waa farsamo gaar ah تلو كم شفت إركض شفته. مركان يكون إركض حالتي قناة ودولات كلها قناة. نيك دولة هذه أرد دولة يعني شتكا مركان دولة إني شغال واحد نروح حسابين لا وصل نط. وهالك هذا مالك شقيسان ولا بنك شقيني. مركان دولة وحالة كدول. ولو ديارة هذا أنا كنا باص شركاين. بحيف ديارة دجالة. بحيف كدول حالة كدول بوها. ريسك خطرت هذا له. هوش هذا له. مركان هالك تونس مركان أنا شقيا الله تسنى يحسب. الله تسنى كوي قرن. مركان نيك وانو إلى ظروفها فهمه. qofkan duulay qofka farsaqaanka dadka hawsha ay dheeryihiin marka Yusulig baa joogo ciidan markii la dhisayay ee deeruushka ee xoog loo dhisay markii siyaasaddu soo galaan galaysay Yusuf ambassador wax laga dhigo waa laga bedelay waxa la keenay nin infantry oo ma laha diyaarad baraacin aqoon iska dhaafay Cabdi Cali waa lagu jiray way ninkaasi nin
xitaa dadku dee technicalkii kula wanaagsan yihin ha ninkaas markaa wuxuu noo keenay sheeko aan hagaagsanin oo ahun ninku kacaan ma yahay mise maaha waay laa xawla ciidanka curkuna dee in la bolsaas gareeya maaha iyadoon ciidanba aanay ahayn haddana waa ciidan ku xidhan qofka xirfadiisa xirfid war waa farsamad u baahnay marka ninkaas uu yimid anigu markaa waa markaanu ka tegeyno anaga diyaaradahaygi dee dagaalkay ku baaba'een laakiin ciidanka cirku markaas u baaba'ay oo dee sidii loola macaamilay hab bolsaasna duuliyaashii markaa duuliyaashii waa la bedelay dee misana sag waaxyihii operationka ciidanka cirkoo kale waaxii tababarka ninkani waa inuu ama farsamo yaqaan uu mashiinka iyo technicada la garanaya ninkan wax xukumayo ama waa inuu nin duula yaho ama uu duuliye yahay ama navigator ama de wax lamida uu fahmaya cirkii iyo xaaladiisii iyo diyaaradii marka labada midnaan ahayn dee laga buuxiyey waaxyihii oo loo ogaya kacaanka maydaalinaya tawasud weysaa meesha marka kacaano dawladda duuli way noqotay gadood rayidka iyo militariga iyo cid walba saameeyey baa 80yadii dalka ka bilaabmay oo lagu diidan yahay talisko masalan hadday ka soo qaadno markii dagaalkaas 77kii la galay 78kii waa lasoo jabay dabeedna inqilaab isu dayay taana waxay sii waxaysay ma garanaysaa sheekadii halkii markii hore ay taalay markii dambena markii gobolada mudug ay sheekadu ka bilaabantay haddana waxay ka bilaabantay goboladii waqooyiga culeyskaas maxaad ka xasuusataa sheekooyinka intii militariga ahayd maaha ile waxaad ahayd nin odayaho aadba dhulka wax ku lahaayoo joogay kacdoonada iyo saluugaad ma garanaysaa dadka galay siday u bilaabmeen horta markii hore dagaalka jib baa lagu wada galay markii hore dadku dagaalka jibbaysa oo dalkan horena waa lagu wada galay markii dalka xooggiisa la galay la maraya dhagax buur iyo jigjiga iyo ayaa waxa soo baxay phenomena khilaafa oo siyaad bare iyo qolay jabhadaha ahaa ee liberation army ahaa ila waa tirana waa anagoo diyaarad wadano dagaalka muddo oo adiga idaacadda ka hadlaya waxaad jirtay oo warar ku sheegi jirtay markaasaan yaabi jiray gobonimo doonka dowladda wata ha bambar anagoo 10 khataro soo galay oo calankana ku soo wareeyahay waa laga marka qoladii jabhadaha ahayd dee waxay u qaateen xorriyaddii iyo awooddii gaaray lawatan caalamka leeyahay idaacadii radio muqdisho aan hayden jabhadii halka gaaray jabhadii baa gaaray markii maamulka la isugu tagay dawladii siyaad bare ee wateen waxa dhacay meesha dheer maamusho صح horta khilaaf baa dhacay way khilaafyada maamulada anigu xoogay lamaan ninka cir ka dagaalamayana ee kolka halka guux baa ka dhacay iyo khilaaf soo jabidana ciidan ahaan soo jabin siyaasi ma soo jabin siyaasad maal ruushka diiday oo ka noqdo santaad ku hayo oo maxaa bare si cad u dhinooway waxa la sheegay xitaa wafti mar la kaxeeyo inta Moscow la geeyay uu aanu kuma jiro oo la soo saraakiishi iyo taangiyo oo jigjiga maraya oo dir dheer maray gaalo midho halka ka ya carabi oo diyaaradda ciidanka cirka sawirka iyo diyaaradda numberkeedii mid walba leeyahay waa kan deeto waa tii ruushku nagu dhaqaajiyey wixii aan tooda garow jiray waa kuwii Yaman oo bariga cadan ahayd oo shuuciyad ahayd iyo ninkii oo jiray fiilkaas sare oo yimid iyo Qadaafi ee leeyri ka noqda waxa hal meeshii adii migistay labadii aan tooda baa tiine jooji waxan وكيف إنه سمر شريف في الكاسترو يعني كي مركز يستين يمانيو واتيتينا وحوك سورتو وين آخر كواتيدا كوريشن بقولي كوباني إيو بريج كوجوينا أفريقيا أو سماير روش وكي تطبيع شو جوه بقولال تانجو كسوق قاعد ديارنا جيتي توغلينا إنك تشوفه شجع مركز صوم سبب دعس وحكي تصعده وديار روش واحد وكسوين تترى حوق الروشك iyo ciidankii Kuubaanka iyo cadan bariga ahayd ciidankaduna lagu yimid barigaas oo soo kordhisay waa kuwii si wacan leenoo in dhabarka loo jabiyay inagoo marayna adisaba agteeda oo ciidankii ilaa halkaas balaariyay wati jigjigan baashana soo degay taangi la soo daadiyay kaalmaro hoosteeda biicada xagga dambe laga soo fadhiyay shanta wadada tidii way nooga xidhay waa kii habqa ka dhacay marba hadduu ciidan jabana morasho mudda mar haddii dowlad ciidan xoog oo dhan uu jabay Soomaaliya marka qaranku wuu wada galay mar dib la saarama damba looga lahaay dagaalka maxaa wixii baa dhacay waa saarama waxaan markaa aanu weyn in yar ka oranaya inqilaabka ciro Allah naxariistay nin ragii la dilay kamid ahaa
ayaanu laba guroo isku xeeg ku jira waay dabeetana ninkaasi waxba imu sheegin waay inaanu gaar isu naqaano reer Hargeysana waa dabeetana nin qaataal oo jiro ciidanka cirka ayaa habeenkii wax dhici doonaan aniga oo fasax ku jooga muqdisho yimid dabeetana wuxuu igu yiri inqiraab baa la samaynayaa waa sameynaya hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaanu doonaynaa markaa ciidanka cirkan operation ku sima kara waay waay markaa waxaan doonaynaa inaan tagno daafeedo ay hawshan ka qabto hawl aan hore u sii ogeyn oo waxa ka maqal hebel iyo hebel ka jeeso barigeey baan ku wuxuu Ismaaciil Carab Bakar iyo hebel iyo hebel bal adar ma aqaan ninka weyn maxay doonayaan kuwaas iga bilaastay halkii shirka hore ka aloo xisa cirro qula fadhiyo laba saddex nin kale aan garanay waay oo meel fadhan saasheed uga eegan waay waan iska noqonay nakemro afgooyu sii mariyay meeshii macallimiinta waay nin aan waanan garanay isagoo garanayay marka qaaja waxay isu dhawaayeen baan reedintay waay ama Cabdullaahi Suwan kale waay ayaanu tagnay macallin wuxuu xanin kii wada hadlay waxba ka suurtoob waayeen waxaan tagnay daafeen nin imika magaciisii aanan garanay oo magacaada lahaa naanas lahaa kuwandoosta markaa ayuu uga yeeray kuwandoosta markaa waxaa jooga Axmed Mare waay waan garanay wallahi haddaad iska aragtay waxta hor maxaa jira waay isagana jooga ninka hadlo haddana uu soo noqdo adigu iqalcin waa warwareegii aan soo galay saddexdii xamar iyadoo jidka xidhaya waay qoladii inqalaab ku dhigay waay adeer anoo safarolay waa Cabdu wadin qaaja wadin wareerisay ayuu agooday soo dhawaaday qoladina iskala balaarisay waay waxaan shirka rabshaalihi waay ilaa meel gurigiina waa fogyahay waa tan wadada kale ximbaad kale tagi maayo moogta ninkan la charge ina Ismaan indhoore maxamed Ismaan oo qol ku jiray meesha ah ayuu garaa waay oo gaarigiisa hor yaalo tooro kiiban oo saxno tim warqaba dhaca ka meesha iska saab maxad ka jib wallah kaana gashan gaari sharan fuul booliska gaar markaa waaga bariile todobadii meelaha todobada mar saxabadan way dhaceen xaggan Morgan iyo qoladii soo bilowday Cabdullaahi Darawal iyo inaa shaqale iyo qoladii tababarka la haystay askariga waxa ka soo bilaabay waay oo dib madaafiic dul maraysa waay anna xalayna waa tan wax yar waxna ma hayo waxna ma garanayo marka dhanna waan ka yarda distan hado ninka badan muxuu deenu ku waday marka hore wax la maxad haysaadaan waad qosol wuxuu ka dhacay aniga iyo taato gaari yar xuno janta oo haysago maxaa jiray janta fatiga miyo wada taato aan ridda saa hore u marayno ayaa Maxamed Siyaad Barro ka koonsanay waay afka hore ugu qaad gaari iyo qaar daba yaacaya waay ilaa markii hore xariirna ahayd moogti guutadii taanka inankiis joog jiray xagga ka shir kora ayuu dalqeeyay waay dadna xabada waddo walba bilaawtay waay bog meesha shirka iska noqonay shirka iska noqotay ha waay dadna baa xawdhe walbalaaya doorkii waa la kala beermay doorkii waa isku weyn تناوتي هذا سر هذا شراء وحير حلويدي وحير أوريق ولا يحبر بارس وحورينا محل الدين بالي ما يعني ماها ما هيش كتجي عيدك يبغى يكون والله دور سكش كتجي لكن تون لا تعيش كبعد يا قولي يحبر بارس شفتها محل وجه وردون كيوح يا عيدك عرك يردي حبيبك حاجة شوتي حاجة مقلدي وحل حسابي أنت كم مقلد حرضة أسكرتنا نبي قبتها مر والبا وكشيجي ما حرضة كرمتها كودي وانا من دحرم بارنay moogti te xamar oo dhalaa sanaad inta ku jirta waa lagu jira marka in xirada laga helo muddo saxan walba aruya wixii xagga ka jira te marka sidaada birta shaqo ma jirta waa dirdusiisa te tan inta yadi bila sharci ku maqnayd ayaa dalaha te tan aad waxba ku joogsan way laakiin ragaan saaxiibada ninkii guriga aad ku jiray iyo rag laayay qaacana wala xid ninkii amka dhawrtay saaxiibada dhowr rin bay la tagtay maxaa dhacay markaa kadib saluug baa yimid dadkii waa tii saluug dee wax badan keen saluug waa taa ku soo lixda ku keen way anagu markii dambe dee markii saraakiisha lahaa waxa la arkay meeshii inaan rajo lahayn dad badan baa hadal iyo wax toosin iyo odayaal iyo dad badan hadal dee way socon weydi deetana waxa la isku qanciyo la gaaray baashan gacan ka hadal mooyee inaan waxba kaga toosin ترى حاول بنك تشن
rag badanoo saraakiil aanu ahayn ragga odayaala noo madax ahaa waay oo anagu dee dhalinyar markaas maxamed halac oo kale reer waqooyi baad ahaydeen markaa idinku anu markaa waqooyi baan isku maydhan oo aad isu maydhateen ha waqooyini baad u hadlayseen markaa waqooyini baan u hadlayn waate maxaad goor bay waxaa noo dee waa 78kii waay 77kii bilaabay xamta waay waayo waqooyiga dad taariikhdiisu uu waxdiidan yahay way soo badnayd waana ku sheegayo 60kii bay qaldantay hadalkii baa la xiray waa saddex xilli hakiimada waa kuwa cigaal iyo dee iyagoo mucaarada yimid SSC furu jiray geerada ka jiray waa tii xasakeedii ka horreeyay la dilay waa tii neere la dilay waa tii dee aad la soo jirjiray dee waxba meesha ay noqotay oo meel la qabsaday marka adigoo ardayga ka baxay camuud ama sheekh lagu yiraahdo xamar kaale ee dhexdana aad weli waxay mari jiray shiftaa jirtay imsa in baa ku dhintay la dilay oo gaariga dhan xawshada ka dilaysay marka laba ku tarabaan qalxinaysay dhexda libaax gaari qalima inta halka hadda cidku nafsad marka xamar tagtana wixii naga qabsaday dad buu joogay wax ilaa dib markii dambe xalaal la tago waa la noolaadee markii ka horreeyay xalaanay dee waxba ka dhacay magaalo weyn in ayro soo tuuray wad garanay cid joogtay cid iyaa ka celiya adoo gaajo ka xoto ku qaday waa ilaahay dhan kaaga celiya kii baa sabar doonaya kii leysan doonaya kii muraadar yeesha adigu dadku xana mu yareen hawshu waxa alla wixii dalka laga dhisay mashaariic adduunka lagu caawiyay 83% koonfur laga dhisay hal warshad iyo hal il dhaqaale wadada yare laamida ah iyo bridge-ka Hargeysa iyo warshadaasi markuu goor dambe ahayd ayaa kaga soo baxay marka idin saddex sano wixii dalka military ahaan ba isu tusteen idinku markaa maya orada dee sheekadu siyaasad kala idin weelisay odayaal baa jiray oo waa la isku xidhnaa grassroots baa waxay waay dareen dadka ku diga joogay ku guda jooga saddex meelood baa arrimo ka socday jidda oo rag badan oo siyaasiyiin oo miisaan loo ka duday waxa diiday ay shaqo ka helanay caruurta korsanaya waay qolo la joogtay waay oo arday iyo siimaano iyo siyaasiyiin hore halka deganaa iyo intii gudaha joogtay hor saddex meelood buu kacdo ayuu asalaamta laga asaasay iyo asalaamta hawsheedu ka bilaawday anigu labada kale xogaalo ma yihi waay tii xamar waa loo dhamaa waay kow asaaska koobaad dee Ismaaciil Cabdi Khari Cumar Cabsi baa lahaa oo ay ka soo fidisay waay ragga iyaga la soo jiri jiray annaga na gaargarin jiray waxaa kamid ahaa maxamed halac baa kamid ahaa waay lixle waay aadan shiine waay allah yarxam horta raggaasaa ah raggii wanaagii anaga isku xidhkaysi maxay markaa idin sheegay muxuu ahaa markaa heshiiskiinu ma iska dareen uun iska buuxaa mise waxa go'aan ku gaadhsaneyd inaad meesha wax ka qabataan maya wuxuu ahaa go'aan siyaad barre iyo raggan iscugtay 10ka ah ee 20 sano soo heesaya inaanu hadal mareyn gacan wax laga qabto weeyaan in la iska celiyo mooyaan marka sidee loo helay awood in la iska celiyo baa laga hadlayay marka idinkoo gobola weliba reera maya waa heshiis ka gaadhsay maya waa sicid kale ku jirtay maya kolka hore u dhimatay Somaliland waay oo dhimay markii hore markan dagaalka uu qarxay baa la kala beerbeerayaa oo dee siyaad barra dagaalamaya oo ragga bad la soo haraya oo mid qabiil kula soo haraya oo mid wax ka sheegay oo wuxuu dowladda hawl yareen markii hore waa loo dhamaa Somaliland waa dhamaa markii hore marka ma waxaad go'aankiina guuxaasi ma wuxuu ku saabsanaa inaad goosataan dhulka waqooyiga mise inaad maxamed siyaad barru ridaan horta marka hore ereyga Soomaali waxay ahayd in la doono erey baa la isticmaal jiray aan kala rahayn waay in la soo celiyo gobonnimadii iyo xuquuqdii waqooyiga Somaliland waay eego erey imika hadii la xaq u jeeday waay erey daahan isweydiin leh markii aanu isla tagnay in badan baa la shiray shirar badan baa la soo maray sida loo baxay laga heshiiyay iikaad horta hayra gaadin asalaamta intaad xamar joogteen iyo bilowga ha intaan la joognay waxaad heshiis ku ahayd waxaa heshiis lagu ahaa ka weyn in maxamed siyaad barre la khidaamiyo jiray ha waay waxaa jirtay oo aad looga fikri jiray in la yidhaahdo ha la soo celiyo staaskii reer waqooyiga Somaliland xuquuq baa ka maqan oo dowladdii ay isticmaalka aanu ridin mid ka adag baynu galnay aan xuquuqda soo dhacsan kolka ereyga xuquuqdan soo dhacsan define ma ahayn aynu gobonnimadii dib u doonaan laguma carabka lagu dhufayn ya aynu kuwa dadka xoreyna gacanta ku jiray laakiin wuxuu ahaa kacdoon ku wajahan Somaliland dowladnimadeedii xuquuqdooda ku lumisay
oo isticmaal cusub Soomaaliya gasha inuu dib ugu celino intuu celina way maxaa dhacay markaa kadib ragga arday baa horta ma arday waxba ardaydaas way damayn tahay horta waa la haloosi way rag badan waxay yiraahdeen waryaanahan Ethiopia oo tabashal la dagaalamay naxariis noo haysay inaan tagin meel aan halkan gudaheeda wax ka sameeyay gudaha wax ka sameeyay كل شيء كان شعرها بليه آخر كنوفمبر أما سبتمبر هذا مويانه أيه واحد الأول انقلاب عن سوينه أو قبلنا قوي قلنا واي وحيرجع كوفر شوقي هرت مركز قوي واحد بدنا وقوي واي حاجة صار كوتوي كنا وقوي هاي وصلت سبكي وحين كده ميعي إذا ما دي فترة هاي عينك شوي هرجيسة بقول كيف استيت ما هنرجع هير وقوي كوتوي كنا رأيي هاي واي توش سرحان يا أفريقيا كلهم شوقي wixii xaggaa waqooyi joogay koonfur ee loo baahnaa fasaxa helo waxa ku warwasooda iyana hargeysa soo wada galay way rag way hargeysa fasaxkiiba wax nool wax dhintay bale haddana lixire iyo raggii deen hogaaminaya shiina iyo weli noqon weyd markii muddo la joogay haddana waxa la yidhi may tan ma suurtoobayso oo khasaaraha badanayo saana u dhacaysa xamar baa la tegey way waxaa la isugu tegay sheekh shariif baax mushtar odayaal waxaa ragga aad arinta anugu shirka noogu badnaa Allah waxaa musa galal baa kamid ah way iyo dareerooda way abd jaamacaydkii hodheelkii lahaa hodheelkii Sinai ragooda ku jiray de hebel baa ka qaban odaygii loo jiray dhuxul ku reeb berbere ka jiray oo dhintay Allah in xaaj xaajira de rag weyn aniga markaa aan deesba gaar jiray leena yar baan markaa waxa lagu haloosaayay ilaa jabhad sameeyno oo ciidan sameeyno oo qorigaas aad ragga afka kaga ay qori loo helo waxay iska celin karaan yalla waxba la iska celin saasa qoladii saraakiisha yareer markaa ahayd dhalinyarada ahayd aad loo in leedii ku tirtirtay oo maskaxda la kasho way ma duruuftaaba ahayd bad duruuftaaba de waajib ahayd baan xaq ahayd baan la imka leeyahay wadacad baa aydo ummadda hadii kala badbaadaybe dabeeto waxa la go'aansaday in la baxo marka duruufana hore wax weeyay Itoobiya shir baa la istiri dadkuna wuxuu ka qabaa taabuu iyo cudud Itoobiya uu gala waa islaam oo xaq diinta laga eegay mar cadaawad hujrada baa laga eegay tasaxad jabad kala kaasi horeysa idan heshiis hayn Abdullahi Yusuf jabadii sameeyay baa taagan marka haddaad ku biirto meed ku biiraysaa soo gala maraysa waa su'aal kale dee waa tila baxay ilaa dhamaad waxaan ku sheegay horta asal halka laga dhawaaqay waxa ku sagaashankii koobiyo 80kii waxaan laamii kala iyagu isku shaqeynayay laamii kala iyagu oo midaysnayn saddexda laamood ayay tii halkan iyo tii jidda mid way iskaashanayeen oo warku isgaarsiinayeen laakiin unified hogaanin ka dhaxeeya muujirin markaa laakiin halkeeda qolay markaa halkan dhawaaqa ku sameysay waa kuwii ku aansaday inay tagaan iyagoo kuwan anaga ogeyn inay dhawaaqayaan laakiin dhaqaaqa dusha socdo ayaa xaggaa waxa lagu wareejiyay xilkii saraakiishu inay abaabusho arrintaa marka lixda madaxa shiina ku xigay anagu eshron ka hooseena labada aniga kaahin rag badan dayib Allah naxariistay Ahmed Mire oo markii dambe dhoofi doonay sigay Cabdi Samad baa midna koolas qabtay Maxamed Cabdi Israa baxay Ahmed Mire rag badan oo imika daanad sanadiif Allahumma salli ala Muhammad digolin soo dhintay way badan raggi aadan Salaaban nin isagana loo jiray food oo markii dambe loo wareejiyay hawlaha guud food mar arrimaha dibadda u joogay may wala food kaariba dibadda waa isagoo anagu la socday u joogay nin food oo jiray hawlaha guud loo wareejiyay ma sha Allah markii raggii la shiray waxa lagu aamiyay Itoobiya loo baxo idigu xamar gaar ku gaadheen Itoobiya guriga loogu soo badaa ka mid aha waxaana lagu aamiyay in jabhad gaar ah la sameeyo waqooyi taa Abdullahi Yusuf ee koonfurta aan lagu biirin waa nagu hadda xamar joogno oo waxba hayna ragga soo u baxayaana waa la qorsheeyey mid diyaarada saara iyo mid ku baxaba sidii loo kala horeyn lahaa si loo tagay haye sidii kuwa boota kala bixido dee waa tii la baxay inuu Soomaaliland u badan inaa dee rag badan baa kamid ahaayo ay kamid ahaan Ciise Soofa iyo Siciid Cali Gire iyo rag badan oo ku dee baxay Soomaaliland waa u dhamay Cabdiraxmaan Cali Waaki xaga ka yimid
horta dee sidii baa sidii saasaa lagu baxay ha rag markaa jooga okay adigu markaa anigu goor markaa markan lagu diray horta waa la xidhay waay markii arrimaha la waday waa lagu xidhay ha waay imsadii baa lagu xidhay eri tuugii ahayd baa Labiyo siddeetan. eri tuugii ha waay waa tii la oran jiray berig saraakiil badan oo tii laga soo xaaqay laga soo waqooyi. kaxeeyey waqooyiga haa aniga nin qamari laahdo laba miskiin oo meesha iska joogno dambigood ma lahayn maxaa oo isna aanu markaa diyaarad shabeelle ku duulay laga joojiyay diyaaradda shabeelle buu waxaa jira anna ciidan diyaaradyaana qaareen dhammaadeen oo xafiiska arrimaha dibadda karaan yarka ah ayn baa waxna soo galay mooy haybana la qaado waay rag badan markaa la xidhay rag badan ayaa la waxay ragga saraakiisha la xidho berigaas la qabtay dhowr iyo 20 baa xamar laga qabtay waay axmed cabdigan cadda ka mid ahaa waxa samakaab baa ka mid ahaa maxamed hebel samatar baa ka mid ahaa dee dhowrito ma yareen marka raggii berigaa la qabtay anigii niraa ay qamariyaha waxba raadan lagama helin waay in yar baan ku xidhnay halkii military police 3 bilood iyo bar meelaha 4 bilood meelaha waay laakiin raggii kale maantaana laga qabtay min 10 sano ama 8 sano dhameeyey dhammaantood waay aan cidina maxkamadda geyn cidina aan la hadal annaga se maana dhaafin halkii military police military police wanasbana rag badan baa noo gurmaday oo markaa raggii xilalka ayaa oo kamid ahaa ninkii maamulka lacagta hayn jiray loo jiray Abdullahi Kaahin. Abdullahi Kaahin aad iyo aad oo dee maadaama xarunta shaqeynay iyo rag badan oo kale ayaa dee cali samatar ilaana la gudbinin ayaa aad noogu dacweeyeen dadna nasiib wanaag iyo nacasnimo waxaan ahaydba sax baa loo xidhnay baa nasiib wanaag waa lidinka daayay idinka markaa koris baan tegey haddaba wax kaa sheekeyna sheeka fiction u eg laakiin runa oo markii door rumowday oo sidaa aan ku tagay koriska ahayd waat anuu eg dawladda ka shaqeyn jiray nin aanan garanin wariyeen dhintay oo nin fiican ahaa oo guutaala la odhan jiray guudle ayaa noo ahaa karaaniga taybka garaaca waay xafiiskayga waxa bixi jiray waxaa lixii militariga dibadda u baxaya annaga maamuleynay hadduu koors yahay hadduu wafdi yahay wax doonay ahaado dabeetana waxaa taabarka hayteen in la yidhahda inaad libaaxsa ka taabto jaran ahoo iska taabto badaan waay koors baa soo baxay waay anna haddii ilaahay xabsigii iga soo daayey haa oo raggii kale akhire loo diray haa waa inaan booda dabeetana waxaa lasoo garaacay rag koors loo diraayo waay koorsyadii lasoo diraayey ee meesha laga gudbinayay mid laba kamid a banaanaa habsan laga ah waay markii warqadii ay ka soo dhawaatay jarankii haa ayaa booskii banaanaaye ila waan ognahay inuu boos banaan yahay haa ayaan guutaalo ku heshin inaan kaa isku qoro waay 40 musax soo maarka forsidii haa 5 ku dhamayn waay way kan gashay waa inaan 4 saacadood gudahood baasaboorkeena ku yahay magaalada kaga baxa waay ilaa hadii kale waxaan waa isla dhaaranaysaa way falaalisa waa la ogaanayay ah waay marka waa dabka ka cara dabka ka boodistida oo ku dhac dabka noqon waan baqanaya in la xiro iyo khatar baad ka caraysa haddii sitan lagu waayo proof akhra lagu sii diraya magaalada kan bixi kartaa meel markii la soo daayay xitaa hawiyada iyo bukta ma soo gaari kartid oo afkooyay ma dhaaf kartid balcad waraaq baa naga taala marka waan friski meelada ka ciyaarta waat markii warqadii aan sida ku dhamaynay madaxdayda xaydina ma oga waay waa inay guud waa kacandiido family Cabdullaahi Yusuf buha waay ni adagna waa ku daba garamay aan ku dhamayn waay marka hadii ana qaaday ila ana horaba alisra safarada maraykanka qaaday ha haa waan qaaday waxaan geeyey safarada ataajegi koorsi ka soo qaaday dee taraninkii Mareykan jooga waxa ku dheysay baasaboorka dee ila waan ku jira koorsi waan tagay haa baasaboorka soo qaaday marka taasoo qabo waan caawr raacay diyaaradda Soomaaliya Airlines haa waa ii bariday haa kuwa kala soo bixi doonaa haa diyaaradiina waan raacay markaan tagay waxaan sii labisay dharkan dhaagnaalaha qurux aroosyada saraakiisha ay ku tagaan xafladaha aynaal balayda haa kaasaan ku taagay waay oo infantry ah ila ciidanka cirk baan jiray soo maaha waay ilaan ka hor isku qaado infantry haa ayaan ku taagay waay Allah xariisan nin aara loo jiro markii dambe Hargeysa ku nimaadna tugida ah waay aara loo jiro u dhintay
waree oo awdala ayaa shaqada hayo dhowr jeer hore meesha isku dhaafnay waay oo debriga waan sacad doonay safrada xadka jiray mugti waan salaamo kala soo caawad xaragoonaysa saan ku dabcan diyaaradda waan galay carada leys baa duulay waay qolada ma fiishkii aan dad dowladka naqan mugti waska salaamaya hawl ma jirto markaa anigoo ka baxay albaabkii de immigration wixii dhameeyo dhaafay array qoladii nabad sugid ahayd oo diyaaradda hoosteedii maraya oo markaa degan waxaa ku hagaagi ha lacagna $20 baan haysta $20 dan kibri dan marun xabsan ka boodo ayaa waxaa laga soo lay kolay gaaro istamayacaysa waay diyaaraddan salaankeedu ku socda mugti waa cali samatar waay waa ninkii oran jiray muxuu ahaa qufacdiid waay waa intii ilaalinaysay waay waa mariino waa balaayadii waa halka taagan ilaahay wuxuu galayay inuu baasha cali samatar raacayo waay iyo waxaan la socda waay haddii la hado markaa saacadda waa qafla baabeyn waat haddaad raacdo koreen xaggeed socota waxaa ma haysan haddaad noqoto kaaga darana waa isla halkii dabeetan naftu marar bay say doonto biniaadmigu haddii imika xaggan iyo xaggan liwax naga soo baxo xaggii hore bilotaasha ayaan deg deg u koray sax orodkii fariid tuyarana saa tiri xaggeed socotaa ma cali ma hebelo de ilan bilaas bay cashada qarax waar isku qaado horaan dha صح beriyaal sanimka looga baqday argixisada diyaarada ciidan ma aftuu jireen yaro Falastiiniin way baqabadeen mu jireen de dhar labso aamin waan taagana waa sax dhexdaas taag qaar baa soo galay show ma dhoofayay isagu ma dhoofayay waxa la qaadayaa sheekh Suufi loo oran jiray oo qof cadiid sodog u ahaa ayaa show xanuun soo faariga xurufteen waay marka sheekhiisa wateeyaane tagayaan iyagu waa soo fuuleen halkan ka noqonaya waay meel dhaxan taagana mugti waad eegaysaa daaqada dadkiisa xaqi baabig haday soo galaan xaqi kale ka deg waay soo fuuliyo oday hablo horeysan inay rastaa dadkii meesha wareeyay adu xaqi taagtay ilama had karo dadka kale bisan baa marsa waxa sheekh Suufa xanuunsanayo xarun badan alxamdulillah ilaah sheekh caaf ilaah sheekh caaf ilaah sheekh caaf ma hasiyo naqsad ducays timo xal ducayn ba soo sheekha waliga ama karamo dadka quraanka baray inankiisu dadka quraanka baray ilaahay barakay ee raadka qabow ya adnood qabowdi markaa soo balaadiga mucil soo saday wardi ku raacday siyaasada ku raacday halkay kula tagtay markaa room bela fadhiist waay dabeedna Mareykan 8 saacadood baan ku jiray $20 in asrafta in iska xajistay waashto man ka degay inta telefoonka iyo in taxi gaari ka abaarka tareenka i gaari kartaan ilaa meel hore waqaanay warun ayaan xajistay dadna qolo meesh joogtay niman walaalaha markaa oo dhintay kabriga noolaayo rabbi telefoon diran halkan jooga waa yaabe ma ku dad soo baxday walaasha war soo isug markaan lagu joogay in koor si xareystay in de ilaa waxa wada leegal iska tagay ayaa waxa safirka Maxamed Xaaji Nuur waay Maxamed Xaaji Nuur isku family waan waan xagan kala soo dagbiye yadda xaaskiisii oo isku qorana tan waa la soo dhaweeyay inuu wanaagsan maara islaanta maxay tiri ceebteeda war yaqaan inuu ku sheegi afar shaqo baad iyo soo lacag waxa faagas loo jiray ila bariga ma jirin telefoon la leeyahay ninka soo fakada soo qabto soo celiyo oo markaa iska soo celinay odaygu igu dhimaayo dawan iskaamusis odaygu ma wan sheego waxaan ku oray ma waxba ma waa sax waa la gardarayay kooraska dhamaysanaya de waan noqonay idan baan soo yarday in waan soo iska sax odayna uu iska xishoodo war uu dhamaysanaya uu soo noqonaya aamusa wuxuu ma noqonaysaa haa baan ku oray anuu markaa inay beeniyo inay nafta dee xalaal tahay beentu ma kala garanaye odayga isto gaana waxaan u sheegay waan soo noqonaya halkaa igu joog qaybta hore ee barnaamijka xusuus reeb oo marti noogu ahaa Muuse Biixi Cabdi inta ay noo joogto qayb labaad ayaanu bilownaynaa Muuse waxay u taagan tahay isaga oo ka baxay Soomaaliya oo markaa 1900 iyo 82 ay tahay oo inta la xiray la soo daayay dabeedna asxaabtiisa intii badneed ay go'aan ku gaadhay in dalka laga baxo oo markaa isagana ay u suura gashay inuu Mareykanka sida dhuumashada ku tago iyo waxbarashadaas